su-aasha ugu dambaysaay waa su-aal soo noqnoqotay wasaa'ilku wuxuuna leeyahay cuduradan qofka u dhintahay shahiid miya sida daacuunkii masaladaasi waxay ku xihan tahay jawaabteedu daacuunku ma cudur gaar ahba soo cudurada dilaaga ee fido oo dhan baa daacuun la yidhahda qowlaani liahli اlcilmi qaarna waxay yidhaahdeen waa cudur kasta oo faafo oo dilaa ah daacuun waayo qaybna waxay yidhahdeen maya waxaa la yidhaahdaa cudur gaara oo jirka ay nabare iyo boogo ka soo baxaan kadibna ay dilaacaan una badan meelaha laablaabka ee kilkilaha iyo xaglaha iyo meelaha qarsoon ee gudaha ah caloosha laablaabkeeda oo kaleetiyo buu ka soo baxaa masaladana waxay u noqonaysaa axaadiid tilmaamaha bixisay baa jirto oo rajaxaysa daacuunku cudur gaara weeye laba qaybood axaadiidta ka midaba daacuunku cudur kastoo dilaa oo fida inuusan ahayn bay tilmaamayaan kuwa waa kuwaha tilmaamaya oo axaadiidta leh aabaadka kilkilaha iyo fil maraaqi yuu ka soo baxaa sida xadiidka caaisha iyo xadiidta odhanaysa shuhadadii dagaalka ku dhimatay iyo kuwii daacuunkaa murmaya oo sida iyadoo kale ma tihiin baa lagu dhahaya dadkii daacuun ku dhintay markaas waxay dhahay hala fiiriya dhaawaca idinku yaaliya dhaawaca nagu yaalla halaysu eego hadday isku mid noqdaan isku mid baa nahay markaasaa la eegayaa dhaawaca iyo nabarada ku yaalla isku mid baa la arkaya axaadiidta waxay tilmaamaysaa daacuunku inuusan cudur kastaoo dilaaha ahayn axaadiid labaadna waxay tilmaamaysaa in xanuunkan hadda joogo oo kaleeta uusan ahayn daacuun curfiga sharciga ah nabigana waxaa ka sugan dajaal iyo daacuun toona madiina ma galaan magaalada nabiga alay slatu asalaam madiina almunawara ma galaan cudurkan iyo kuwo kalena way galaan oo nabigu markuu tegeyba cudurkan malaariyada aada loogu dhammaanaya kaanad mawbu'atan ul qaniin oo malaariya badan bay marka ereyga wabaa ee cuduradan faafo oo dhan buu ka mid yahay xataa cudurkan shubanka inagu daacuun qaar u yaqaanaan daacuun maaha ma shahaado wey sax almabtuunu shahiidu waay qofka carurka caloosha u dhintay ee shubanka ah almabtuun baa la yihahda daacuun ma aha sidaa darteed masalada qeybta koowaadi cudurkan socdaay daacuun ma yahay cala asaxiixi la daacuun ma aha laakiin waa cudur dilaa waxaa soo hartay hadduusan daacuun ahayn kii calooshii iyo shubankii mabtuunkii iyo kollaarihiina uusan ahayn xukmu shahiid ma yeelanayaa qiyaasan culammadii tiri dee xanuun kasta oo faafo oo dilaa daacuun baa la dhahaa iyagu dee maba shakinayaanoo waa shahiid bay ku leeyihin kuwa kale shahiid ma noqonayaan haddaan idhaahno axkaamu shahiid iyo darajada fadligeedu axkaam adduun maba lehe fadligeeda sugitaankiisu bilqiyaasi bay ku sugnaan kartaa waa looga qiyaasan karaa dabkii kii ku gubtay kii guriga ku dumay kii biyuhu ay daxafiyeen hooyadii mu raacday ama foosha u dhimatay qofkii daatil jambiga oo kansaradiya u dhintay in la raaciyaay qiyaasku waa keeni karaa ee masaladaasoo kale qiyaas ma lagu sugi karaa fadaa'ilkaas baa masala khilaafiya ah bayna ahli اlcilmi raxmat ullaahi calayh lakiin masaladu daacuun ma aha cala asaxiixi